kulanti wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada waraysi aad u kooban aan ula yeeranayno hal-abuurka Soomaaliyeed mid ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed gabar ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed waa Safiya Tusmo aanu jecelnahay inaanu wax ka weydiino sugaan ay baryahanba maskaxdeeda ay ka soo shiishay ay bulshada Soomaaliyeed doonaysa inay muddo la wadaagto qaar oo ay horey u soo bandhigtay iyo kuwo kale cusub waxaanu wax ka weydiin doonaa nasiib darrada ayada iyo jacaylka kala haysta waxaa jirta inay jeclayd nin Soomaaliyeed muddo 31 sano ah laakiin ay ku sari weyday arrimahaas iyo waxyaalo kale ayaanu wax ka weydiin doonaa waxa kaloo intaasna dheer in ay haatan ku sugan tahay dalka Kenya magaala madaxdiisa Nairobi Nairobi maxay Safiya ka doontay ma Soomaali kale soo wada iyo jacayl hor leh si ajnabi iyo kuwa inoo soo wada qaybaha dambe barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan haddii la yiraahdo balse marka hore aan soo dhaweeyay Safiya Tusmo sharafiyo karaama ii tahay waqtiga qaaliga aan siisa Safiyo soo dhawow dhawaay walaalo aad iyo aad baan ku salaamay Cabdi Xaafid masha Allah xaaladda aad iyo caafimaadkii oo wanaagsan yahay waxa weeye waa ku jeedaa holiday yar baad ku jirtaa nuur baa ka baxay soo dhawow alxamdulillah aad baan u fiicanahay caafimaadkaygu waa 100% holiday baan ku jiraa waxaan joogaa Nairobi ummadda Soomaaliyeed halkan inaga daawanaysa iyo adigaba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum cawaaneedu kala dhammaan mayna sheekooyin fara badan baan hayaa halkan aan jecelahay inaanu bulshada la wadaagno adigana ay afka ay ka dhageystaan balse waxyaalaha aad caanka ku tahay fanaanimada waxa kaloo ka duwan garab ordayaan ilaahdee hal abuurnimada iyo haybadda ilaahay uu adiga kuu siiyey inaad hal abuur Soomaaliyeed ka mid tahay suugaanta wax ku cabira bal waxyaalahaasaan jeclayn inaan wax kaa weydiiyo waxaa jirta gabay ama maanso kooban aan jeclayn wax kaa weydiiyo oo ayadu markaas qiixaysa nabadda iyo wixii la soo maray iyo dagaalkii iyo buuqii baryo dhexaasa socday in la dejiyo dhibaato iyo dhiig daata iyo godobna aysan adiga kaa bilaabanin ummadda Soomaaliyeed kala dhex gasha gaar ahaan laba qoys oo walaalaha sharaf iyo karaamo labaduba leh dadkuna aysan si khalad uga faa'iideysan oo waxay maaragtay aan xadka laga saaranin bal waxaan jeclahay suugaantaas inaan qayb ka fiirno qaybta dhexana aanu ku eegno haddii la yiraahdo arrin kaloo iyada lafteedu muhiima oo gabay la yiraahdo xujo oo aad wax xujaysanaysid Soomaalidana aad kula hadlaysid ayaanu eegi doonaa qaybaha dambena waxaan eegaynaa bal adiga iyo jacaylka nasiib darrada idin qaysata waraysi horaad bixisay aan daawadayna waa arkay adigoo leh iskuma nasiib wanaagsanin jacaylka meeshay sartu ku qorantay waan ogaan doonaa iyo odaygii 31 sano aad baadi goobaysood ku guul daraysatay bal Safiya soo dhawow maxaad sugaan ka tirisay wixii ku soo maray dhawaan waan dhawahay walaalo aad iyo aad baan ku salaamayaa waxaan ku yidhi adduunyada waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala riisan buu inoo keenay qof walba walow aayad qur'aan ay tidhaahdo jinka iyo insigaba wax kale looma abuurin ilaa iyo ilaahay inay caabudaan mooyaane haddana qof walba kan intuu nool yahay wuxuu mutaysanayaa maad aragtay waxyaalo badan oo xagga ilaahay ka qoran wax walbana waxay ku yimaadiin reason bay ku yimaadiin oo ilaahay sabab buu uga dhigaa ummadda laakiin wax kasta oo intaan nool lahay ina maraya waa wax loox maxfuudka inoogu qoran hadday gur tahay iyo hadday baar tahay hadday qalad tahay hadday sax tahayba xadiis baa yidhaahda ilaa iyo janno inaan gelayno iyo cadaab inaan gelayno waxaa la qoray caloosha hooyadeyn markaan ku jirnay marka adduunkani waxaan marayo waxay ummadaba maraysaan uga simanahay baan kala simanahay su'aalo badan baad isu faydaba dhigtay waxaan jeclaan lahaa inaad iga dhigto one at a time laakiin su-aashaasi jacaylka haddaan kugu horeysiyo horta horeyba sidaan u sheegay waxaan ahay one of the people ilaahay adduunkan dadka uu ku abuuray dadka jacayl markay noqoto inay dee ii dambayso ma sheegin laakiin soo far intaan soo maray warasti lucky buu ahaa sidaan ugu sheegay halkaa uu ka haday Safiyoy was lucky buu ahaa suugaantaan hormarinaynaa arrinta jacaylkaan dib u dhiganaynaa waa dul istaagaynaa waa falanqaynaynaa suugaantaad tirisay eed wax ku dejinaysa inay godob kaa aloosanto aad kaga soo horjeedid iisoo horumari
bal jacaylkaagana waanu dul istaagaynaa inaad waxaad baadgoobaysa ku guuldareysatay wax sababta u ah soo dhawow mar kale والله سوغانتا horta gabayga ayaa wuxuu yahay sideedaba horta raalli ka ahaada waxaan deganahay Islii waan diiday meel kale waxaan doonayaa xudunta Soomaalida inaan joogo si aan Soomaali badan isku barno marka noise badan bay leedahay marka walaalo suugaantu waxa weeyaan waagii hore dee hadda afka la iska isticmaalayo gacan baa la isku tagaayo wax walba way qaldameen laakiin waagii hore suugaanta la isku mari jiray suugaantu waliba gabaygu waxa weeyaan sidoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax walba wax buu kala fadilay humanka nabiyadii buu Ilaahay ka fadilay oo kiiniskooda ahaa ugaadha libaaxan baa ka baawar weyn oo Ilaahay kiin uga dhigay oo wadiga arkay meel libaax jooga xayawaan kale ma soo joogsado suugaantana sidaas oo kale boqorka suugaantu waa gabayga anigoo inaan de fiicnayn inaan suugaaniyo ambiye misaya laakiin waxaan tusaale uga wadaa dadka sida wax walba wax mudan shay walba wuxuu leeyahay shayada kale ka mudan marka gabaygu heesaha iyo jiiftada iyo maansooyinka iyo waheelooyinka iyo waxa kale oo dhan waa kiinkooda uu ka mudan marka gabay baa jiray barigii de xaaladii aan ogeyn aan tiriyey gabaygaasi marka wuxuu ahaa sidaan ugu talagalay umay dhicin waa layga qabtay waxa laygu yiri maaragtay sometimes markay wax ku haystaan waxa laga yaabaa waxaad adoo isla waxba hagaajinaysaa inaad wax worst ka sii dhigayso marka waxaan rabay maadaama walaalo dumar ahay dumarkuna mar walba fidnooyinka dumarka ka bilowda aanay iisi ku qaboobin cabdi xaafidow dadka meesha degana ay yihiin dad ehela oon kala maarmayn oo maaragtay colaad iyo dhibaatana saacadan aan qaadi karin waxaan mar walba ku dagaalamayay oo wax walba oo aan maaragtay la iman karayay amba barka soo dhigi karayay aan u aasay oon anigu maanta aaminsanahay in la dulmay inaan anu is dulmay ay ka weyn tahay aan aaminsanahay waxay ahayd inaanan fidna abuurin inaanan dadkaanu toolka nahay ehelka nahay walaalaha nahay maaragtay aniga labadaydii garaba fidna aniga iga timi aanay iskugu dhicin waa gartay u guda gal gabayga marka gabaygu sidan buu u dhacayay ma doonayo inaan filaaqeeyo halkaa inaan galo ma doonayo waqtigeedii ma joogno laakiin maadaama gabaygii halkaa ka yimi baan doonayaa inaan maaragtay adiga iyo asxaabtaba sababta keentay aan idin sheego waana ii rogaaban gabayga intii kale waa laga ka tegey gurowga maansiyo wiglada masegerarka gurowga maansiyo wiglada amasegerarka gabay waa hubkaygiyo hanti aan garu leeyahay godaloola gortaan arkaan gobo kaasiyaye xaqaan ugu garaaba waqay eed kumaan geline anoon gubatashidahayn anoon galowu yedhyeedhin xaajada go'an saarayaan idin guddoonsiyo xaajada go'an saarayaan idin guddoonsiyo gulufiyo colaadiyo haddii ragisku gobtaba geeliyo gamaaniyo haddii gunyalay haddii mayd garbahaasi ma noqdo dhigu gaalacleeyo ama galowgu foodhiyo igu jeley guuxa ka ilmayso haddii geesi caaniyo la dilo niman garbood midhan qalbiga igubanaya baan qabow ku gaadhayne kolla gama kuladi maayo udugtuye faafi gabaygii horta maanta intaas baa xaasil ka noqotay maaragtay wuxuu ahaa Soomaalidu gabdhaha waa kuwan gacan la saarayn
gaacin iyo ha joogtee in nabar lagu garaacayo geerida waxaan dhaafsanaa gabadh ilmaysaayo gambooleyda dumar iyo hablaha lama gadaafeeyo kaasuu marayay adii intaasa ka xaasil caawa kuleyto insha allah maalin baan dhammaystiri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waa gartay dabcan arrimihii dhacay ma doonin inaan ku fogaano dhex galno in wax lagaa weydiiyo oo si qoto dheer lagaaga waraysto diyaar ma u tahay mise uma tihi Safiya may hadda waqtigeedii ma joogno inaad markuu qoon jiro nabar markuu jiro wuxuu u baahan yahay nabarka in la dhayo dhaawac inuu bogsado dan kadib baa barigooyada iyo xaalka la kala qaadan karaa laakiin hadda weli waqtigeedii ma joogno wixii sugaana sida gabaygaas oo kale haa waan gelaynaa laakiin wixii details iyo hadala waxa weeyaan maalinteeday leedahay insha allah waa gartay sugaantii baan dabcan ku guda jirnaa oo aad maaragtay haatanna aad tiri sugaantaas wixii ku saabsan maan doonay aan ka hadlo waxaa jira gabay kale oo la yidhaahdo xujo oo aad kula hadlaysid soomaali weyn oo dhan meel kastoo ay joogto muxuu daaran yahay gabaygaan xujo wuxuu daaran yahay horta xujo waa maanso weeyaan waxay daaran tahay waqtigan maanta lagu jiro wax walbaba waxaan isticmaalaynaa wax qaldan wadooyinkii loo marayay ayaa inaga wada katiban shay kastoo kor loo qaado waddo qaldan baa loo marayaa marka general unbay ka hadlaysaa waxyaalaha dhibaatada keena iyo haddii aynu samayn lahayn sidan imay dhacdeen waa gartay waxaan jeclahay daawadayaal inaan hoosta ka xariiqno waxaan haatan oodayda idinkaga soo qaadaynaa maansadaas xujo hoga tusaaraynaysa xaaladda dadka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin saanu gobta u ahaan jirnay iyo jabka iyo dhaawaca iyo burburka dadkeena iyo dalkeeniiba gaaray iyo ummadda Soomaaliyeedba iyo weliba waxaanu eegi doonaa qaybta dambe oo iyadu xiise gaara leh Safiya Tusmo 31 sano ninkay baadi goobayso dad ragga ay ka jeclaatay oo u suurtageli weyday inay ku guulaysato iyo arrimo kale ayaanu eegi doonaa balse haatan iyo maansadii xujo aanu ka dhageysano dibnaha Safiya Tusmo soo dhawow Safiya waxay leedahay xujo adduunyadu waa xuje maxaa xilliye isbedelay maxay xaaladaha waqtigu xusuus kugu reebayaan maxaa xiqdi soo ifbaxay xumaan soo daahirtoo samaantu xabaalan tahay muxuu xeerkii burburay sharcigu xayndaaban yahay xagaani afduuban tahay cabdixaafid halka xagaani haddaan kuu micnaya dad badan baa su-aasha maaragtay adduunyadu waa xeer iyo xagaani xeer waa wax muuqda oo cad xagaanina waa wixii maad aragtay xeerkay hoos timaadaa marka kelmadaasaan doonaya dadka inta badanoo hadda dadku maba raadiyaan erayadii soomaaliga ahaayo wax kaloo cusub bay iska samaysteen laakiin su-aal hadday ka timaado waa saas weyn xagaani afduuban tahay muxuu caqligii xargalay xagaasatay garashadii xoog iyo muruq aawan yahay muxuu xaboowaray shacbigu xayraamuu jaah wareeray xumbo iyo daad uu la tegey muxuu taladiiyo xilkii xilligu niman geyn badoo xeeldheeriya geesigii ummaddan u xidigin lahaa waqtigu xusul duubaya muxuu xeerkiiyo sharciga midaan xirfadiisa baran garhkiiyo xakamaha qabtoo xaymamka isku suray dadkii kolkii xaaje laga gudbaba xujooyin kalaa furtoo kollay taba xaaladuun xasarad waa kama gudbaan kollay taba xaaladuun xasarad waa kama gudbaan ha yeeshee tala xumaa dadkeenna xagaa dhigtee haddii xilkas iyo haldoor talada loo xuli lahaa sidaa uma xamil go'neen xerjaan iyo waddamo kale sidii waxaan xoolan nahay xaafadba xaafad kuma direen xafiiltan qabaa'il iyo dagaal kuma xaaqaneen dadkeennuna xaabo iyo xarfo iyo cawsmay noqdeen sidii xuladkii la shido inama xaqireen dhigeen xaquuqdeenniyo milgaha xoor iyo nacab kuma tunteen xulaafiya waddamo kale xaqayna ma duusiyeen xeeliga badda iyo berriga khayraadka ku xeersanaya hantidanan xisaab lahayn inuu dhibyaraan xamaasho xaashe ee kuma dhiiran lahayn hoggaanka xumaadaybaa cadaawo inoo xidhee waxaa xaalad murugsan jira markaan xubin u furay xaqiiqda markaan dhex tegey markaan xudun u galay xiskayga ayaa i faray xogtooda inaan bandhigo
anoon dusha xaadinayn salkana aan xaabinayn maansada xigmaddeeda dhugo anoon dusha xaadinayn salkana aan xaabinayn maansada xigmaddeeda dhugo xaddiga nuxurkiya murtida xulkeedu wuxuu yidhi xisaabe isdiidan baan xalkooda ku daalaynaa dadaan isba rabin baan isla raadinaynaa waxaan isqabanayn baan isku tulaynaa xisaabe isdiidan baan xalkooda ku daalaynaa xaqiiqo la aasay baan xabaasha ka faagaynaa xaqiiqo la aasay baan xabaasha ka faagaynaa adduunyo xorowday baan xabaday isku haysanaa adduunyo xorowday oo dee lagu kala tegey ayaynu inagu maanta xaabada usoo guranaynaa waa adduun la qaybsaday oo qarnigii sayidka lagu kala socday adduunyo xorowday baan xabaday isku haysanaa xayndaabka qabyaaladan xiskeeda dhex yuurarnaa dhulkeennoo la xoogay baan xifaaltan ku foogannahay nin ciidda xaraashayaan xoolaha maqan doonnidha nin isaguba dhulkii gadaya ayaynu inagu la neelahayn odeerow dalbay naga maqane intii maqnay doon intii hadhay buu isaguna gadaya nin ciidda xaraashayaan xoolaha maqan doonnidhaa dalkaba nin xadaaya baan xogtiisa u dhiibanaa nin aan xog ogaa lahayn ayaan taashka u xidhnaa adduunyada waxaad arkaysaa qofku hadduuna waxba ogeyn waxaa la yidhi ilaahu niman wax ogeyna cadaabi nimaan xog ogaa lahayn ayaan taashka u xidhnaa waxaa laga wadaa inta badan cabdixaafido waxaad arkaysaa nin suldaan sheeganaya oon suldaannimadu waxay tahayba haba yaraatay aanay uga daarnayn waagii hore suldaanku wuxuu lahaan jiray milge gaara dhaxal sugaa jiri jiray oo dee wiilkiisa amba walaalkiisa ha noqotee ninka lagu bedelayo wuxuu ahaan jiray nin training la siiyo haddii dagaal la gelayo uu wax ka ogyahay haddii mag la bixinayo wax ka ogyahay meelaha lagu shirayo maad aragtay arrimaha reeraha dee lagaga hadlayo la kaxeeyo xataa isagoo yar maad aragtay siduu wax badan u barto oo ha dhowto markay adduunyadu hor timaado uu wax uga ogaan karo hadda laakiin meeshii masaasada lagu siinayay isagoo fadhiyo oo weli halkii hooyadii canjeerada ku siinaysay daawiyaa fadhiyo unbaa laleeyahay aabaha baa dhintay cimaamada qaado dabcan safiyo suldaanka keliya maahan waxaa jira ogaasiyo waxaa jira islaamo soomaalidu dhaqan badan bay leedahay kuwa kale laftigooda maan loo baahnayn in tababarkaa la siiyo maya dee way uun horta lahjad ahaan bay kala duwan yihiin laakiin suldaanka iyo mulaaqa iyo ugaaska iyo waa uun isla xaafadii uun xataa warriorka ninka dagaalyahanka ah waxaa jiri jiray rag ka soocan ragga kale oo maad aragtay dee dalka nabdintooda iyo dee rag laga cabsado oo dagaalyahaminaa jiray inamadooda sidaas oo kale unbay training u siin jireen walow dee la odhan jiray dabbaa dambas dhala oo marnaba maanta intii aynu geesi soo lahayn aanay dee iyagii ka tegin ujeedadu waa sidaa nimaan xogogaa lahayn ayaan taajka u xidhnaa nin aan xilka gudan karayn ayaan dalka xaq ku nidha arrintaas halkaas waxa weeyaan bakoorad baa igaga soo noqonaysa oo geli mayno nin aan xilka gudan karayn ayaan dalka xaq ku nidhaa xasaradda nin hurinayaan xasili arrimaha nidhaa isagii baaba dee ka shaqaynaya dhibaatooyinkan la leeyahay wax ka qabo xaraaradda nin qaba xalli nidhaa nin aan sharci xeerin baan cadaalad xurmeen nidhaa nin baadiloo xaytay baan dulmiga xakameen nidhaa musuqa nin ku xoogsadaan shacabka u xaqsoor nidhaa miskiinka nin xoogayaan xaqooda u dhiibanaa xigtaysi nin doortay baan ha kala xigsan dadka nidhaa nin marka horeba qabiil ku soo baxay oo anaa ree hebeley doortaay ku soo baxay ayaa beeyo dhan oy qoomiyado dhani degan yihiin loo dhiibayaayo marka horeba reer soo dirsadeen de inuu maaragtay sanadkan uu reerka meel gaadhsiiyo marka maansadii xuja intaasay ku eg tahay waa gartay maasha allah waa gartay safiyo waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan arrimo kale oo dad fara badan ay jeclaan lahayn inay fursad hadday ku helaan ku weydiiyaan aanu ku weydiino aad baad dhinaca nasiibka jacaylka ugu aadan nasiibkaaga jacaylku ma wanaagsana oday soomaaliyeed ama nin dhallinyaraa soomaaliyeed waxaa jira aad 31 sano jeclayd kuna sari weyday xaggee wax ka qarrimeen
والله هرتا قدر ربضن ده إلهي قدر تيسا حويا نصيبك نول بده إلهي هرتا وحو قريب ومريا سيدا وحو جعل هنا وحو مهلو مر والبا أدوية هرتا سيدا دبا عبد حافظ وحويا وقرشي قدر واحد قريستي ودادي قدوني سو إناد هشو إيه وحي إلهي كو قدري عبد حافظ أدان هلكا ما دركتي يعني وحكرا ويل وناكسن بان سو guursaday wan caruur soo dhalay oo ma daragtay maanta ma ahi qof leh xagga dambe aan ka soo xagal daaca laakiin xaggii hore caruurtayda aabiyashooda rag gobobo wanaagsan oo anigana ilaa maanta ubadkii baan kaga imiyo dee waxa weeyaan anan maanta ceeb ku anan dhib ku arag laakiin siday dee maanta laba wiil baan caruur dhalay anigu laba xaas bay leeyihiin siday dee iyaguba gabdhaha kale u xusheen baan anigana qalbigaygu dee qof kale u rabay iyagana waan jeclaayo maanta dee waxa weeyaan waa walaalahay weeyaan laakiin waxaa dhacday anigoo anagoo aad u yar baan wiil isjeclaanay faamiye aan ahayn first mistake buu isagu sameeyey aan ku kala soconay waan kala xanaaqnay waan ka tegey waqti yaroo gaaban baan wiilku guursaday anoo 16 wiilkii baan caruur badan u dhalay oo waqti dheer baan isqabnay marka waxaa dhacday 2000kii baa waxaa dhacday horta waxa fiican qofku hadduu wax sheegaya inay siday wax u dhaceen ay wax u sheego laga sheego haddaan xidhana african joogaayo khadkaygii baa xidhmaya dee whatsappkii waxa fiican qofku historigiisa markay tahay inuu xaqiiqada ka sheego dad badan baa taabanaysaa because the human baad la nooshahay laakiin keliya waxaan ka wadaa on my side my story inaan siday wax u dhaceen u sheego marka wiil aan isqabnay caruurtayda aabahooda aad baan u salaamayaa niman jecelahay oo saaxiibkayo wanaagsan weeyaan ayaa inankaas baa gifti iisoo diray hadiyad buu iisoo diray warqad uu beri iisoo qoray way jirtay oo wiilkaas uu akhristay marka inankan horta markaan ka tegey horey baan ka guursaday markii dambe isku soo qanaaloo lay qabo qof aad iyo aad diinta ugu wanaagsan weeyaan he completely cut me off maadaamaan dee nin qabay waan kala fogaanay markaan dhoofay faamiye maadaamaan ahayn dhinacii faamilinimada ayaanu waxoogaa talagooda hadli jirnay giftigu iisoo diray marka giftiga markuu iisoo diray caruurtayda aabahood ma jeclaysan in maaragtay qof uu dee taariikhdiisan ogyahay uu hadiyad iisoo diro marka wuxuu iga dhaariyey inaan xataa ciid mubaarak dhihin wuxuu yidhi ninkan kulama soo hadli karo lama hadli kartid marka dee maadaamaan qof muslim ahay oo xaas la qaba ahay waxaan idhi waaya 9 sannadood geeriis kumaan wicin samriyo iimaan xataa ismaan udhin qof dee faamiliga markuu qofka dhinto 9 sano kadib anuu 9 sannadood inankii aanan salaanta ka qaadin faamilina waanu laba wada dhalatay baan kala dhashay ayaa waxaanu inankii aniga naaftigay iga jaray ayaa in adeertii jeclaaday in adeertii u jeclaaday then waxaan ku kala dhimanay halkaa kelmadoo ah anigana inaaftigii waxaad igu tiri salaanta ha ka qaadinoo waan qaatay oo 9 sano salaamu calaykum oo dhan adiguna in adeertaa baad doonaysaa maanta inaad guursato jeclaatay labadaasi ma isqabanaya marka asagoo weli ku qaba miyay arrintu dhacday mise markaad kala tagteen kadib isagoo weli anigay qabo reasonkan ku kala tegnay baaba sidaa ahaaba gartay haddaan ku gartay inankii waan kala tegnay arrintii baan ku kala tegnay inantii buu guursaday waan salaamayaa dhammaantood carruur bay isku leeyihin maanta waa family ballaaran waxaan la hadlay inankii baan markaa ismaqalnay oo arrintii dee familigii waa la ogaaday maadaama inankii kala tegnay then berigaas xaas buu isaguna lahaayo reer buu lahaa jacaylkii hore reer buu lahaa maadaamuu reer leeyahay aniga waa ninkii hadiyadda soo diray ha aniga boos kale igama banaana marka sidii baanu maad aragtay aanu friendship baanu soo ceshanay dad maaragtay walaalnimo ah wada hadla
arrimaha qaarkood waxa weeyaan halkaas detailska wax badan oo halkaa jiray waan ka boodayaa because maalin bay soo socdaa cabdixaafid oo jaaniskan aadaan kusiin doona insha allah waxaa dhacday in aan ku diiday inuu xaas yahay oon ku yidhi xaas baad leedahay maadaamaad xaas leedahay waxbaa hadda inama dhex mari karaan dan isagana uu sidii ku qaatay uu yidhi waa yahay inankii aan intaasoo sano jeclaa maaragtay aan one jaanis helay inaan nolosha kula midoobo waxaan ku diiday xaas inuu leeyahay anoo isaga ku diiday xaas baan anigu waxaan guursaday nin 2 xaas waa in lagu gabiyo marka ومركا مركا كلها عبد الحافظ ودونكني وقدر يقرش مركا كلها قدر كونه عجيب مثلا waxaan gursaday wiil baan gursaday markaa isaguna 2 xaas leh aad baan u salaamayaa nin wanaagsan inankayga abi intuu ila soo hadlay ma oranin xataa kaalay anigana xaas baad igu diiday nin 2 xaasna baad gursatay say wax jiraan ima dhihin oo muxuu ku waranayaa inta kulkaa go'anay 8 sanadood baanan haddana salaanta iska qaaday oo sidii ku kala maqnayn 8 sano kadib baanu haddana aan maad aragtay aan wada hadalay oo isku nimi anoo markaa madax bannaan laakiin sheeko kale ku jiro oo nin la sheekaysta ninkiina aan kala tegnay waan la hadlay waan wada hadalay then waxaan ballan iyo axdi kula galay inaan tago waddanka isagoo waddanku jooga oonu maxaan ku dhahdaa bishii 6aad 2020ka aanu midowno ayaan maad aragtay kula ballamay maalinta waan xasuustaa wixii guri ballamo badan baad gashay ood ka baxday waxaa tahay qof mar walba axdi jebisa aarsigaagu ma dhammaado then hadda ma kaa go'an tahay oo diyaar ma tahay oo haayo isagana gabadhiis way ka dhimatay alayaa raxmo markaa single buu ahaa then bishii aan isaga la ballamay bishii ku horreysay baan haddana maxaan ku dhahdaa bad kala galay oo nin gursa sidii baanu haddana ku kala soconnay weli sidii baanu ku kala baqannaa marka waa gartay calafku waa saasaad leedahay calafku waxa weeyaan calafku horta waa sidaa marnaba waxa weeyaan wiilka ku jecel kuma helo gabadha jeceshayna ma heshid laakiin waxa wanaagsan qof maad aragtay aad xushmad iyo respect isku haysaan oo dee nolosha wadaagi kartaan inuu ilaahay idin kulmiyo waanan soo kulanay wiilal badan oo soo jeclayn oo soo guursaday way jirtay oo maanta malihi carruurtida abiyashad ma soo jeclayn malihi waan jeclaa laakiin waxa weeyaan dee xanjadii meesha ku dhegaleeday weli halkii bay ku dhegantay waa gartay waxaa iigu ka hadhay 2 su'aalood waxaan rabaa midaan inaad haa iyo may uga jawaabtid dabadeedna su-aasha kale raba inaan waqti ku siiya aad ku falanqaysid haatan adigu ma guursan lahayd nin 2 xaas leh ama 1 xaas leh so waa kaaga dhammaatay ragga xaasas kale wallaahi horta waa sidaan kuu sheego wax badan oo afkayga ka yidhi baan soo eeday cabdixaafid dadka waxaan ahay waxay ku kaftamaan ilaahay ku karbaasho ilaahay amarkiisa marka hadal hadhowtay garaaca ma doonayo inuu yimaado laakiin insha allah ima qorshaysna inaan nin xaas le nolosha la wadaago ima qorshaysna walo horta ma guursan lahayd baa ka horeysa taas oo dee waxa weeyaan am enjoying hadda noloshaydu sida ay tahay waan ku enjoy garaynayaa laakiin nin xaas le maya waa gartay xaasleedu xisaabta kuma jirto hadda kuma jirto waa gartay faclo gartay waxaan rabaa inaan kula kaftamo nairobi baa joogtaa dad fara badan oo asxaabnahay baa nairobi jooga waxaa laygula kaftamay oo la yiri safiya noo weydii safiya raggii soomaaliyeed meel bay ku tiirisay ajnabi iyo kukuyo iyo amay soo wadaayo nairobi saxan aysan holiday u jooginine jacayl ajnabi amay u joogtaa arrintan maxaa kaga jawaabaysaa cabdixaafidow soomaalidu waxay tidhahdaa wixii ka qabsaday cabsiye la giiwalle caddan baan u baayicin horta kolleyto soomaali maanta one chance baan siin lahaa haddii ay sidaan waxu rabaa waxu dhici lahaayeen
laakiin walow aanan halkaa ka rajo dhigin haddana berigi hore anu waxaan ahaa dadka racistiga ah ee aadka uga soo horjeeda guurka ajanabiga kula taliya gabdhaha iyo maad aragtay asxaabteeda iyo intaan aqaana iyo intaa media iga dhegaysataba inay maad aragtay mar walba wiilasha soomaalida siiyaan fursadda koobaad meel kastoo wiilasha soomaalida la leeyahay gabdhaha way ku xun yihiin amba dhib bay dhib keenaan amba sidan bay yihiinna waxaan dhihi jiray doogu ha iska xumaaday ha ku doorsan abaar si kastoo u xun yahay wiilka soomaaliga anigu waxaan aaminsanaan jiray inay mar walba soomaali inuu soomaali u yahay wiilka soomaaliga inuu huunada yahay walaalka yahay waxyaalaha qaarkood aanay soomaaliba hadduu yahay iga imanin laakiin maanta different idea aan ka haystaa oo waxa weeyaan ilaa reena sireed baan u dhawaay maanta inaan la xidido dee dadkan aadka iskaga riixa ahaa marka calafka hadduu ilaahay igu daro maanta wallahi waddankan anu waxaan u haysan jiray dad foolfool xuno dadka soomaalida necebo si kala inay joogaan laakiin wallahi there is a hard man here haddii ilaahay calaf igu daro waan soo dhaweynaya waa kow maxaa tiri war ilaan annaga wax aragnay saaxiib yaal dadkana fiidka qol iikaadi safiya waxay tiri niman shidan baa jooga bay tiri Kenya iyo Nairobi oo Soomaali ahayn arrintaas waa inay Soomaalidu ka gabaydaa suugaalaydu wax ka tiraahdaa gabdhaha ajnabi ma geeyo maxaa tiri wallahi horta waxa la yiri niman dul marini dhaayala Cabdi Xaafidow صح mar walbana dadka waxaan leeyahay waxaad maqashaan ka mudnaysiyo waxaad aragtaan aniga haddii dhowr bilood ka hor la odhan lahaa safiya nin afrikaana aan soomaali ahayn maxaad keed anu xataa waxaan aaminsanaa inaanu nin soomaali ahayni aanu marnaba siba una habi iga dhigi karin inaan qalbigayga ku qanci karin hadduu ninku soomaali ahayn you know physically emotionally kaftan sexual inaanu niman soomaali ahayni anigay qancin karin baan aaminsanaa laakiin in the same time waxaan aaminsanaa nin soomaali ah inaanu marnaba dhibaateyn karin oo xumaatay gaarsiin karin laakiin walaalo different idea aan ka haystaa beri baa waxaan xasuustaa dad badan baan uga sheekeeyey maalintaa waxaan xasuustaa hibanuura wacay oo daqiiqadii aan uga sheekeeyey nin baan waxaan ku kulanay store anuu wax ka iibsanaya ninkii markaa albaarkinkuu igu sugay wuu iga soo horbaxay wuxuu igu sugay baarkinka meesha baarkaan isku nimidnay wuu isalaamay wuxuu igu yidhi xageed ka timi waxaan ku yidhi Soomaaliya markaasaa cabaar baan meesha kaftanay wuxuu igu yidhi numberkaan I have your number so numberkaygaan u qoray numberka markaan saa ugu qoray unbaa waxaan ku yidhi uun adu xageed ka timi nin dheer buu ahaa waddankaan anuu dee igu yidhi waan ka yimid dad gaagaaban baa ku nool ninka wuxuu igu yidhi Ethiopian baan ahay Ethiopian baan ahay naxadin aniga si kale waxaa ban moodayba inaan dadkay arkayaan oo harayga fiyo markaasaan ku yidhi mala Ethiopian ahaa you mean you are Ethiopian ha wuu ku celceliyey saan ku yidhi ma Ethiopianka dega ayaa tahay dalka mise you are real Ethiopian so you are yeah I'm real Ethiopian saan waliba ku sii celiyaan ku yidhi you mean mikirta xayla Maryam biibo so you are yes saan ku yidhi give me back my number marka anoo naxsan oo moodaya in la igu sawiray baa waxaan xasuustaa maalinta hibaan waxaan ku yidhi maanta hiboy taas ay ku dhacday anoo aad u naxsan oo iskula yaaban intaan ummad aqaan oo dhan baan uga sheekeeyey maanta can you believe inaan maanta nin amxaara aan taleefankayga siiyey laakiin maanta waxa weeyaan I have a different idea marka haddaad maqashay kookooye iyo keeno dee hadda kukuyiya waxaan sanoo magacyadooda ma garanay laakiin haddaan kenyaati maan keeno Cabdi Xaafidow waa sii digaya igu ceebsan waa kaas arrintaas anugu markhaati kama ihi oday Soomaaliyeed baan ahay gabdho Soomaaliyeed dhalay gabar Soomaaliyeed qaba marka anuu arrintaa markhaati kama ihi anoo soo qaybgalayo mudaharaadka qaybteeda ka qaadanaya safiyad susma ajnabi ma geeyo Soomaali baa geeyo anagu saasaan aaminsanahay dadkii hore dhaqankii hore haystaan hay safiyoy laakiin waxaan rabaa inaan kuuma waxaad u qoslaysid wuxuun baad ogtahay waxa jirana waa soo bixi doonaan laakiin waxaan jeclaan intaas kusoo gabagabayno balse adigaan kelimada u dambaysa siiyo soo koob maxaad ku horeysaa taageerayaashaada iyo saaxiibada
iyo dadka suugaantaada iyo halabuurkaaga oo la socdaba soo dhow taageerayaashada oo salaamaya dhammaantiin hawadan idinka soo dhunkanayaa dalka iyo dibaddaba waxaan ilaahay idinka baryayaa dabaylaha dhacaya iyo cudurrada hirdamaya inuu ilaahay subxaana watacaala idinka badbaadiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ayaan leeyahay asalaamu calaykum waan aad u salaamayaa waan kuu mahad celinayaa wixii kaftana waa kaftan wixii xaqiiqa ahna waa iska iman welina waan ku taagnaanayaa jidkayga soomaali baan ahay inan soomaaliyeed baan ahay hooyo soomaaliyeed baan ahay sohiyatusuladiinii baan ahay laakiin saydigiina waad soo dhaweyn doontaan baan filayaa alla baa way ka soo fakartay anyway waan salaamayaa baan leeyahay dhammaan ummadda waan salaamayaa adigana waxa weeyaan waxaad mikrofoonka igu dhiibtay waxaad rabtay inaan maad aragtay hadalka dhammaystiro laakiin kolitaba si ay noqotaba I have surprise for you guys insha Allah soon waa gartay وهجاك سؤال واحد ترى هذا أول جرا مع كارو ما سفيه واحد ترى سربان أوجه هي وأنا صوبر اللي جاي يان للسجن يا حلا جور سوق وضيع صوص صعدة عنده يا هيدي بتكون عن جونتان شلون كان أجنبي عنه كمرت عجارنه كمان صور جن لكن قبل إنه أدمن جعلنا هاي قبل البوس الصومالي ودايما من صومالي إنه يقول ستنا وهن أدمن بيرجلنا saaxiib safiya tusma aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga iyo adigoo weliba holiday ku jira howlo badanna ku yaalaan inaad waqtigaan siiya daawadayaal fikirkiina iyo ra'yigiina halkan hoose ayaad noogu reebi doontaan haddii ilaahay yidhaahdo sharaf iyo karaamay noo ahayd inaan safiya la fadhiisano halabuur soomaaliyeed fanaanad soomaaliyeed gabar soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed wariye cabdifataax cali shanuuc ayaa barnaamijkan idiin soo saaray oo ka tirsan tv-ga weyn ee home cable waxaa kaloo barnaamijkan edit gareeyey iskuna dubariday أحمد عبد الحفيظ أنا عبد الحفيظ يا دلوس عشيني أديك يا داوني سفيت اسمه يا مرتك واحد أنت أنا كنا ديبو كل مدونه سبرايز كلا يا ندير هنا حاول دايما لا أننا نقول يقولون ما نكتي هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته